السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. iska warama asxaabta ma fiicantihiin dhammaantiin idinkiya faamiliyadiin iyo caruurtiinaba. Maanta mawduuc idin ma sido laakiin muddadii 3 daqiiqo ugu dambeysay imika video inta soo istaaga ma duubin oo xaalada badan baa iska jiray oo adduunyadu way iska hawla badan tahay saad ogtiinba. Halka maadigana ma aha alxamdulillah ilaahay yani caafimaad buu ina siiyay xoog buu ina siiyay maskax buu ina siiyay alxamdulillah waa in la yiraahdo mar walba laakiin mood wax la yiraahdaa jira oo marmarka qaar kugu soo kacaya oo muxuu hayay adigoo isla tallaabso oo wax badan sa u soo qabo oo haddana wax dib ku jiidanayo marka faaduma ahaan aniga sad waqtiin horta wax iga maqan ku yaroon dhalay oo iga jira halkii Afrika hadda 2 sano ka maqanahay markaan bil dhamaataba marba lagu yara kacayo ilmahaygi baan u xiisaa oo maxay heeday oo fikir fara badan baan galaa goormaan keenaya ilmahaygi goorma adigu xaaladaas iska jirta markaa wiigagii ugu dambeeyay kayga yar baan ka duubi jiray anigoo ka yar la hadlaya vlogs ka saasaan duubi jiray topic iyo waxba ma soo diyaarin waayo waan haleeli waaya ama waan kari waayo maskaxda bani aadamka markay busy tahay ma qaybsami karto ma shaqadii ma ilmahaagan aad halkan ku haysid waxbarashadiisii iyo inaad ilmihii kala waqti siisid loo qosqosashid maskaxdaadii haddana maqan marka wallahi yani xaaladu hooyada ilmaha ay ka maqan tahay aad iyo aad ay u adag tahay labadaas sano imika ilmahaygan ka soo maqanahay yani waxaan dareemaa inaan yani qof labada garbood culays fara badan saa uga saaran yahay fikir wixii aanad gacanta ku haysan oo ilmahaaga soo qaadi karayn oo ii sheegay ilmahaagii aad maxay ahayd waxaad adigu u qaban karayn bil aad u dirsid kaliya tan waxba u tarayn ilmahaagii haddana waad ogtahay in hada walaalaha ama walaasha ay ku hayso si fiican kugu korinayso haddana hooyaa tahay laakiin waxaan yani maanta isweydiinayay on lahaa dumar waxaa jira caruurahaaga inta iska dhaldalaan ama loo koriyo ama cid kale ay u koriso oo sanado badan ka maqan ama iyagoo la joogaba aan war u hayn ubadkooga waxaan oran lahaa dumarkaas hadde ma aqaano wallahi de 9 bilood ilmahaaga calooshad ku sido ma aniguna ku siday yani ma calal adayg baa mise waxa weeyaan ilaahay baa u kala dhaliyay adkaysiga iyo sabirka ma aqaano wallahi ani way igu adag tahay ilma iga maqan yani inaan farxo inaan ii sheegay meel walba u duulo maskaxdayda maalin walba waxaan dareemaa inay qayb dhani maqan tahay oo halkaa iga joogto oo on focus garin karin xataa ii sheegay shaqadan qabanayo on marmar dareemaa diiqad iyo ciil on is idhaahdaa ma iskaga baxdaaba shaqada ma ka tagtaa waayo maskaxdaadaba ma joogto oo qayb baa maqan kan kale ay la joogo wax walba u qaban karaa muruqayga maalkayga maskaxdaydaba waxba attention-kayga oo dhan waa siinayaa haddana waxaan dareemaa marmar inaan yani kan unan ku mashquulo kii kale aan ii sheegay aan iloobay markaasaan habeen iska soo jeedayo idhaahdaa ilmahaygi alla goormaan keenayaa yani welwel fara badan marka imika halkaas iska fadhiyo waxaan idhi naahaada intaasoo wiigag waxba maad duubin dadkii waxba maad sheegin lamaad hadlin halkan baad inaan kaaga yaraanta ka duubtid unbaad soo hagaajinaysaa fideogii soo dhigaysaa waxaan odhan lahaa dumarka maxay heeday ubadkoogu ay ka maqan yihiin kuwanba malaha dareemi kara de intii dareen hooyole dumarka laakiin waxaan arkaa xitaa wallahi dumar ubadadooda inta 9 bilood intaan ku sidnoo kale iyaguna tuura caruurahooga oo war u hayn de ma aqaano wallahi de ilaahay ba qof walba xaalkiisa og cidna ma xukumi karno oo qof waliba isaga naftiisa og laakiin anu naftayda haddaan ka hadlo aad iyo aad bay u adag tahay ilmahaygii oo iga maqan 2 sano oo iga weynaaday laabtaydii ka koray maxay ahayd isagoo yaraan ka yimiday oo wallahi yani waa xaalad adag oo maxay ahayd xataa qofka marmar ila jooga ee ila hadlaya ma dhageysto de wixii sheegay qofkaas way maskaxda qayb baa maqan qaybna waxa ku maqan tahay kan kale qaybna shaqada qaybna ilmahayga kale horta wallahi wiigagii ugu dambeeyay imika 2 wiig ugu soo dambeysayba energy la'aan حتى
naftayda inaan yani intaan hagaajisa kamarada usoo hor fadhiisto way igu adkaatay oo waan kari waayey maantaan isu soo yaro ururiyon idhinaa bal bisika shaydaanka iska naaro yaa ilaahay baa yaa wax walba og oo qorsheeyey oo og ee shaydaanka ta iska naartid bal soo istaago halkan bal iska hadal uno yaa wallaahi ani wallaahi way igu adag tahay ma aqaano gooran ilmahaygaa keenayo iisoo duceeya asxaabey idinkana ciddii ilmahooga ama ay ka maqan yihiin ilaahay ha u fududeeyo iyagana oo u soo dhaweeyo xaaladahana waa idinka iska arkaya dee beryahan ka socda ii sheegay maraykanka iyo odaygan madaxa khansiir kale yaa wallaahi ma garanaya dee waxaan idhaahdo nafta marmar waxay tiraa 30 cisho kale sii tahriib wallaahi bilaahi yaa ilaahay ubadka anoo daayo anoo barakeeyo iigu soo duceeya inuu ilmahayga ilaahay ii keeno oo waxa keliya maskaxdayda iminka ka dhex guuxaya ee sidaa uga dhex yima anna waan wareeriyadee walaashay kolba nambarka garaac haddii ay hurudda xitaa kolba qof garaac ilmihii aan la hadlo waayo ilmahayga ma jecel inuu iloobo ilmahaygu wallaahi way adag tahay ma rabo ina kamarada ka hor ooye oo nacabaha ina dadku arkaan anigoo ooye marka walaalo iisoo duceeya inuu ilmahayga ii keeno ilaahay ilmahayga isagoo caafimaad qaba ii keeno insha allah waan soo ururin doonaa topic waa soo diyaarin doonaa oo soo fadhiisan doonaa halkan ilaahay normalkayga igu soo celiyo maskaxda bani aadamku halka laga shaqeeyo waa maskaxdaada hadday qayb seexato ama qayb ay meel kale ku maqan tahay waxa ma qaban kartid marka ilaahay hay soo ururiyo ilmahayga ii keeno isagoo caafimaad qaba anigana qalbiga ii qaboojiyo ii dajiyo insha allah waxaa jirta oo kale arrintan maxayd ka socotay beryahan iyo social mediaha iyo ayaamahanba waxaan arkay magaaladii Boorama iyo dadkii iyo iyagana maxay heeday dagaal baa ka dhaceen la islaynayo wallaahi waxaasoo dhan waan la socday waan arkayay laakiin dee anigu qabiilna ma soo dhex galo siyaasadna ma soo dhex galo waxaa la yidhaahdaa tiisa daryeelatu kale ku dara laakiin waxaa odhan lahaa ilaahay ha qaboojiyo dalka ilaahay dadka ha dejiyo ilaahay ummadan qabiilka isku cunaysana ilaahay xaqa ha garansiiyo oo maxay heeday dhulka la isku leynayana adduunyadan waaba laga tagay ayaan u maqaano wallaahi dee waxaan waxba kama odhan karo marka halka iyada ah waxaa odhan lahaa waree Boorama ilaahay intii dhimatay u naxariisto intii sheega dhaawacan ilaahay caafiyo waalidiintii ubadadooda ay ka dhinteenna sabir iyo iimaan ilaahay ha siiyo magaalada kusoo kara weeye Boorama intaa kusoo leekaaday kusoo barbaaray waxbarasho kasoo dhigtay ku dhex noolaa ilaa imika xaafadeeda ay ku nool yihiin ay degan yihiin marka wallaahi waa arrin laga murugoodo anigu laakiin wallaahi qabiilna kama hadlo siyaasadna kama hadlo midda kale hadda xitaa ka hadal istiraadid laftirkeygaba halka waxa kuu jooga odaygii Soomaalida nacay mana qurux badna inaan caalamka istusno qabiil la isku leynayo Soomaalidii kala jabeen oo kala googo'een odagu Soomaali oo dhan isku duubay ma kala reebin xaaladaydi annagana halkan inagu haysataa marka ilaahay unba og yani qof waliba xaaladu ku sugan yahay marka wallaahi caalamka soo socdaan ma garan karo ilaahay ummadan ha qaboojiyo islaynaysa iscunaysa adduunka la isku leynayo adduunyadan la isku cunayo anu waxba yani kama sheegi karo wallaahi nin walba tiisa culusaysay ina loo duceeyo mooyaane wax kale oo maxay aan de oran karo ma garanayo anigana ducaan u baahanahay in ilmahayga ilaahay ii keeno horta adduunyadan ba gebigeyga ma dhamaystirna ee waxa weeyaan muxuu ahaa waa iska hawla badan tahay dadkiina way iska adduun jeclaadeen faalmin masiid ayaa lagu jiraa imika ya marka nin waliba meeshuu jooga ilaahay ku astiro ha kuna arsaaqo farxadna ha ku siiyo saddexdaa week wallaahi aan la
la dawaqsanaaba waxa weeyaan marka ilmahayga yar aan xasuusto ama waqtigu siduu u socda aan arko in maalmaha tiriyo in wiiga tiriyo bisha tiriyo sanadka tiriyo waxyaabaha aan waxba ka qaban karin bay kamid tahay waxaas oo kale marka ilaahay mooyaane cid kale oo wax ku qabanaysa ma jirto marka ilaahay ha noo fududeeyo umuurahayaga oo xaqana hana garansiiyo wallahi waan ducaystaa habeenii maalin waan iska tukadaa haddana markaad meel fog joogtid oo wixii aanad adigu gacanta ku haysan xaaladeedu way iska adag tahay adigoo isla tallaabso oo haddana wax saa kuu jiidanayaan waxyaabo badan qorshaysanaya haddana wixii kuu suurtagelaynin oo dee hawl ka weyni ay meesha kuu taalo maskaxda bini aadamkana waa mashiinka dhan ee laga shaqeeyo mashiinkaas hadday qaybigaa seexatana wallahi waa problemkeeda anu waxaan ahaa dadka jecel mar walba waxay qorsheeyaan inay fuliyaan isla markaaba berriba aanan sugin wixii kale aan qorshaysto oo dhan dee gacanteeda ku qaban karay waan qabtay laakiin waxaa maanta meel fog baan joogaa waxaan wax ka qaban karayna ma jirtaba qabiilna ma caawin karo siyaasadna ma taageeri karo adduunyada mar waxa ku odhanaysaa waxaad ku daashidba maahinba maba istaahishidba yacni ma istaahishaba inaad u rafaadid ama aad meel fog ama hiigsi iyo waxaad samaysatid haddana waad ku qasban tahay dee qof nool baa tahay oo ma jiifsanaysa sariirtaasu ma sugaysid dee intay mucjisaad kuu soo dhacayaan wayna dhaqaaqdid haddana marka alxamdulilaah ilaahay umuuraha inoo yasiro hala ducaysto reer Boorama waxaan odhan lahaa dee berigii hore waxaan uga garaaday sanadoo dadku ay samaystaan maxay ahayd bariis cad iyo caano ayaa la karsan jiro balaayada iyo waxaa soo socday duca la samaysan jiro oo dadku iyaga isku iman jiray jaarka iyo jaarkina malahayn buu isnaceene dadku iyaga isku iman jiray oo maxay ahayd quraan baa la akhrisan jiray oo waa la iska warhayn jiray xitaa jaarku iminka dadkii xitaa siyaasad iyo waxa lagu mashquulo waxaan social mediahan qof waliba uu mobilkan gacanta ku haysto qof walba mashruuq ku jiro oo dagaal iyo difaac iyo cay uma lagu jira habeen iyo maalin ayadana waxaana berigii hore maba jireen ma aqaan wallahi dadkii way iswada bedeleen ummadii way xumaadeen ilaahayow adun baa weyna waaxid ummadana maqane kala qabooji cidii is haysata cidii islaynaysa cidii ilmo ka maqan yihiin cidii reera kala maqan ilaahay isku keen isku soo ururi ilaahayow niyadii qalbiga qof waliba u daji yaa rabbi maca salaam halkaas kaga baxaya kana see you